إن شاء الله سؤال كواد سيدا علماء الله سعودان إن بدن أما دمانتنا أن أكسرنا هاي وحا ودن كدتك سيدا الله سعودان أما دكسونتهين ودن كوحا نجوغنا إنتنا بدن جنعس أما تجارة سؤالها تجاردنا إن كستو إعادوا بدنايين وحي معقولة ينكسو غادني ganacsigu ugu badan waddanka lagu haayana waxaa ka mid ah xawaaladaha su-aashan aad ayay u soo noqnoqotay xawaaladuna waxa weeye dadka waxay ku wada macaamilaan intana meesha fadhiday inta kaleba waa mid wax ku dirsada iyo mid wax loogu soo diro iyo mid wax ku sii dira intaba ayaan isugu jirnaa su-aashan waxay ku socotaa sheekh maxamed cabdi umal waxay tahay su-aasha mucaamalada xawaaladaha maanta jiro ma caqdi cusub oo aan shareecadu horay uga hadlinba haddii jawaabtu tahay shareecadu way ka hadashay cuquudda shareecada midkeebuu ka tirsan yahay maxaase nooga bannaan macaamilka ama aan nooga bannaanayn sidaas ayuu leeyahay saa'ilka falyatafadal sheekhana bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin su-aashu waa su-aal jawaabteedu u baahan tahay faahfaahin aada u fara badan waktigana hala soo gaabiyaa la yidhi marka waxaan dhihi lahaa horta xawaaladuhu shaki kuma jiro wax badan baa ka khaldan mucaamalaadkooda waa xawaaladaha soomaalida odayaashii bilaabay ilaahay khayr ha siiyo iyo ganacsatadii bilaabayna wax badanoo ka mida kumayna salaynin fiqhiga ama yacni shareecada sidaas daraaddeed marka hadda la fiiriyo say u yaallaan khaladaad badan baa ku jira marar badanna ragga milkiilayaasha ah waa loo jeediyey oo culimmadu waa u jeediyeen in ay intay fadhiistaan oy rag culimaa u yeedhaan masaa-ishan iyo baabkan si fiican loo ta'siiliyo mudakiro laga soo saaro waxa khaldan la saxo ilaahay hadda intaan garanayo ma suuroobin su-aasha jawaabteedu haddaan u soo noqdo baabkee bay hoos tagtaa mucaamalada xawaaladuhu ma masalo cusubbaa jawaabtu waa maya fiqhiga shareecada iyo kutubta fiqhiga markii dib loo raaco masaladu masaa'il la mida horreeyey waxayna ugu dhowdahay marka la yidhaahdo fiqhiga shareecada masalada loo yaqaano suftujada ama suftaja oo la isticmaali jiray wakhti hore baababkay hoos tagtana waxa weeye marka koowaad baab la yidhaahdo baabulwakaala iyo xawaala ama taxwiil oo isdhex gala wey culimmada qaarkood waxay leeyihiin waa tawkiil iyo ijaaro isku jirta wey dhowr marka baab oo abwaabta fiqiga ka mid ah baa masaladan asalkeedu taabanaya si ay culimmadu mid walba midka uu yidhaahdo tanay shabaha iyo ekaanshaha u dhowdahay laakiin dhowr baab baa wada gelaya oo hal mar jamcinaysa mar kale dhinac kale marka laga fiiriyo qardi iyo dayn bay noqon oo adiga markaad lacagta dhiibanayso ood ruuxa aada u dhiibanayso shirkadda u dhiibayso nooc wakaalasho ah wey dirid iyo xawilidna way ku jirtaa waa nooc waxna waa ku qaadanaysaayo waa ijaara isla markaa lacagta uu ruuxu dhiibay shirkaddu markay gacanteeda gasho waxay isu beddelaysaa oo qaadanaysaa axkaamtii qardiga dayn ahaan bay isu rogaysaa oo shirkaddaasi lacagta ay qaaday ama khalad ama xadgudub ama tacaddi ama si caadiya wixii ku yimaadaba lacagtaa waa lagu yeelan oo ruuxii waa ku leeyahay
sida hadday noqotona waa xukumka daynta iyo qardigay noqonaysa marka dhowr baab baa isgelaya oo masaladan mid walba uu dhinac ka soo galaya tafsiilkeeduna waxay u baahan tahay runtii in tafaasiil fara badan masalada inta la fiiriyo wax badan jawaabo loo helo arrintaasina waa arrin xil saaran weeye xawaaladaha wallahu aclam